بسم الله الرحمن الرحيم waxaan caawar rabaa halka inaan ku soo gudbiyo maasooyinkayga aan ugu jeclahay runtii maasadan waa maaso dareen gaar ah aniga ii leh ka Carafaad ahaan waa maaso aan aad u jeclahay markii aan sameynayayna aan ku sameeyay dareenkayga anigoo ku cabiraya xuquuqda dhibka rafaadka iyo magaranaysaay iyo hanaanka koritaanka hanaanka dhalmo hanaanka soo barbaarin hanaanka garab istaag iyo hanaanka hooyanimo ay nala soo maraan hooyooyinkeena anigoo ka qiyaas qaadanaya oo xasuusan hooyaday Felis yaan sameeyay maansadan runtii inkastoo hooyo ammaanteeda iyo hooyo jiritaankeeda iyo qaabkeeda aan lagu soo koobi karin suugaan hooyo waa un hooyo waa hooyadu rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi noo sheegay inay saddex goor aabaha ka sii xaqweynta aabahaagay ku dhalay waalidka ahaa kama yareysta asaguna marka maasadan magaceedu waxa la yiraahdaa maxaad hooyo dhibtootay ama halheeskeedu waxaan idhi intaan suugaan dhiteeyay amaan geeraar dhadhaabay heliya jiiftooyin dhaanshay miyaan dhadigaa xagooda dharaarahan aan jaleecay intaan dhurahayga qaato haddana dhahayaa odhaahe dhuuxansada oo warkayga ka saara wixii dhukaan le waxaan idhi dheeman weeye habluhu dhool hooray weeye xareedda dhaqaaqday weeye ubaxa dharabaystay weeye ee dhadiya ciryaan hamoodin nin dhoohan umbaan ogeyni dhammaan waxa jooga noole waxaan garab dhiga haweenka amaan ku dharaarsho hooyo miyuu ruux dhaaya saaray habluhu way ina dhaleene haddana way nala dhasheene kuwana way noo dhaxeene ragow hala dhowro hooyo waqaa ha u geysan dhaawac dhaliil iyo ceeb ha saarin ka jooji wixii dhibaya liitiya dhidirkaa hilmaama dhibkaad nala soo marteene maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay adoo qurux muuq dhalaal leh dhexdaada markaan ku beermay muxuu dhabankaagu hoolmay dharbaan wajigaagu yeeshay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad dhadhamada ka soontay jal iyo dheef qaadan weyday muxuu isku dhogay bogaagu candhuufta maxaad dhashiisay muxuu dhuuxaagu hooray culays la dhaqaaqi weyday muxuu dhabarkaagu diicay dhacdiidka maxaad u jiiftay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad dhuumnaatay awgay markaad i dhalaysay hooyo maxaad dhiig soo harwaantay dheecaankaaguna idlaaday maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay markay dhagahaagu qaylo maqleen goortaan dhawaaqay inaan dhashay aad ogaatay dhacdiidka intaad ka toostay maxaad dhunkatoo jidhkayga intaad dhoolaha caddaysay dhibkii ku hilmaantay foosha maxaad dhooldhoolin heeso dhammow aad iigu qaaday maxaad tidhi dhiiranoowa dhigiisa ka fiicanoowa horweyn dhalay loolisyowa maxaad hooyo dhibtootay maxaan dambarkaagii dhaadhiyey maxaad dhaxantiyo dabaysha dhar iiga ahayd qabowga hadduu igu dhaca xanuunna dhabtaada intaad isaarto adoon hurdadaba dhakoolin dhinaca aan jiif la doonan habeenku muxuu dhammaaday adoo subaxii dhafoor xun weliba ilinkaa dhibcayso maxaad dhakhtar iila roortay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad iga dhowrtay baahi kuriimana ii dhammaysay dhigayga si aan u gaadho dhallaankana uga sarreeyo maryaha noocii dhalaal leh dushayda maxaad ku dhoobtay maryaha noocii dhalaal leh dhaqaale intaad adoon u haynin intaad ididood shaqayso dushayda maxaad ku dhoobtay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad noloshayda dhaaday dhismaha reer ii horseeday intaad dhidibada u aastay dhigtiyo udubka isla doontay dhagaati maxaad ku duubtay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay dhacdiya dhalataan raxmaanka baryada u dhigaa calaacal inuu dembigaaga dhaafo ilaahay kuma dhantaalo jidhkaaga ka dhowr cadaabta dhuxulo iyo naar ma saaro kolkay ajashaa dhammaato qabrigu ha ku soo dhoweeyo ilaah nuurkiisa kuu dhig dhaahaa nabigii udgoone sallallahu calayhi wasalam ilaah dhinaciis ku jooji ilaah dhinaciis ku jooji dhismaha jannadii firdowsa ilaah kugu dheelmi hooyo amiin amiin halkaa waxaa ku eg maansadii
maxaad hooyo dhibtootay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.